بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu muhiim maahan waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed oo aad ay u dhibtay marxaladda ka taagan maanta dalkeena Soomaaliya waxaan baaq u dirayaa waxaan la hadlayaa waxaan runta u sheegayaa golaha shacbiyada Soomaaliyeed waxaan leeyahay mudanayaal waxa jirta nolosha aad ku jirtaan nolol ka degan oo aad ku heli kartaan maal iyo magac iyo mansab intaba waa nolosha deganaanshaha leh waa nolosha cadaaladda leh waa nolosha isku xukunka kitaabka quraanka leh haddaad ka ilduuftaan xaqa haddaad ka ilduuftaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala dastuurka uu u soo dejiyay adduunkan waxaad ku lugu doontaan waxaad isku fahmi waayi doontaan sharciga iyo dastuurka idinku aad dhigateen oo aadana dhibaatada maanta dalkeena ka taagan ma aha mid ku haboonay maanta inaad isqabsataan maysan ahayn maanta waxaad ku jirteen xaalad adag waxaad dagaal kula jirteen Ethiopian iyo Arab waxaad dagaal kula jirteen cadawga Soomaaliya maanta inaad isqabsataan maanta idinku inaad isku mashquushaan maanta idinku inaad isla goysaan ma aysan ahayn maanta haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed waxaad muddo 30 sano ah aad wadeen musalsal aan dhamaad lahayn kaas oo mar walba qof u ka noqonaya toore ma noqon doonto waxaanu si qaadan doona xaaladda dalkayga taagan waanu qaxnay waanu orodnay waanu rafaadnay dalkaygii ayaa halis ku jira oo u sii dhow xilligii la dhaxli lahaa maanta waxaad ku jirtaan marxaladii ugu adkayd maanta waxay ahayd inaad idinku isgarabsataan maanta waxay ahayd inaad garbaha isqabsataan war meeshan adeeraad ku dagaalamaysaan war meeshan aad dabeecadihiina iyo xifaaltanka iyo xoogga aad ku wadaan war meeshan waa masiir umadeed war waa nolol umadeed war waxaad ku matalaysaan dad masaakiina war waxaad ku matalaysaan dal dayacan war waxaad ku matalaysaan hooyooyin ku hoos jira bush hoostood war waxaan aad dabeecadiina ku xukumaysaan waa rajo qaran haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed in badan ayaan idin daawanaynay in badan ayaan idin dhageysanaynay walaalayaal oo nama qabato tan waxaan jecelnahay inaan naga bedeshaan oo aad noo doortaan nololtan ka qurux badan waxaanu nahay awlaad ku dhalatay burbur waxaanu nahay awlaad ku barbaartay burbur waxaanu nahay awlaad wax ku baratay burbur waxaanu nahay awlaad qaxday waxaanu nahay dad tahriibay oo badaha ku daatay waxaanu nahay kuwa qurbaha lagu dhibaateeyay oo qurbaha ku nool oo dalkooda ka firdhaday maanta markii ubax soo baxay maanta markii rajo soo baxday maanta markii ay soo muuqatay iftiinkii Soomaaliya maanta markaynu helnay cadceed yar oo ina diiraysa miyaynu maanta isqabsanaynaa miyaynu maanta golaha aynu isku matalayna ku dagaalamaynaa miyaynu ka dufnay xaqa miyaynu fahmi weynay nolosha dhabta ee jirta war miyaynaan oranaynin tan nama qabato war haddaad tihiin dad xaq oo cadaalad ku taagan 30 sano ayaa dagaalamayseen 30 sano ayaa dhiig daadinayseen 30 sano ayaa qax nagu hayseen iyo dhibaato war xagee ayay hawsha iska qabsan laadahay war maanta waxa loo baahnaa inaad cadawgiina garbaha isu qabsataan war maanta Soomaaliya meel kasta ay laga soo weerarayaa maanta ma aysan hayn maalin aad idinku isqabsataan maanta ma aysan hayn maalin aad idinku xifaaltantaan maanta ma aysan hayn maalin aad dabacadiina ku dagaalantaan maanta ma aysan hayn maalin aad hoggaanka ku dagaalantaan maanta waa maalinta isdifaaci lahaydeen maanta waa maalinta baddiina difaaci lahaydeen maanta waa maalinta aad rajada qarankiina badbaadin lahaydeen maanta waa maalinta aad badbaadin lahaydeen anaga waa maalinta rajadeeda dhowr lahaydeen ma aha maalinta qoryaha isku qaadan lahaydeen ma aha maalinta idinku isqabsan lahaydeen ma aha maalinta isdibaateyn lahaydeen maanta waa maalintii difaaca dalka maanta waa maalintii qarannimada maanta waa maalintii halganka waxaan baaq u dirayaa waxaan la hadlayaa waxaan baryayaa dhammaan golaha baarlamaanka waxaa jirta nolol aad ku helaysaan lacag waxaa jirta nolol aad ku helaysaan amni waxaa jirta nolol aad janno adduunyo janno aakhiraba ku helaysaan nolosha aad ku jirtaan ma aha tan aad hadda ku jirtaan dalkiina waxaa ku jira khayraad aad u tiro badan haddaad la soo baxdaan oo sida ugu habooneed u isticmaashaan inaad idinku lacag heshaan iska dhaafi caalamka ayaad quudin kartaan nolol cadaalad ayaa jirta haddaad cadaalad ku dhaqantaan cadaalad ayaad helaysaan haddaad dadka aad matalaysaan
وهاجر بحضان أو أدلاشان نبدأ قبل أياد هليسان دستورك حق أن نقدقه دستورك وك إلهي سبحانه وتعالى وسود شيء والله ولقي هؤلاء سكان قبل ما يسوا أنت عاد دستور إذنك عاد قاعدين لكم سميزتين عادتك يدركوا حكوميسان أنت عاد إذنك خلدمية اسمه فهميسان سببتها سنوا سببتها الله سبحانه وتعالى أدونك وحوصه صار الدستور إلهي سبحانه وتعالى أدونك وحوصه صار نور يدقناشو نورش يدقناشها قوم كبال مرة هوكي هلاقا يكسوق نادان أنه ما أنت أود وملهين إن إذنك إذن حكونه ما نتشوف ماشي الصومالي اللي حكونه ما تشوفنه بل سيدنك أتشوفه واحد هيستان فرصة إلهي إذن أبورتك بقى بالآذن كو عدالة سمية صدن سنة أيان رباتي سنين ما أنت أيان مدح الله سوكعني ما أنت أيان نبرنا إنا نهضلنا ونرانا وروحا ما قادن كرنا ما أنت أيان إني الصومالي قربها يسقبسطو ما أنت أيان دل يدبدنا إسكا تاغيرنا ما أنت ميسان أهين إنا ندبي عليه نسكو حكونا ما أنت ميسان أهين ربيتان كين إنا نسكو حكونا ما أنت واحي أهين إنا ندستورك الله سبحانه وتعالى قبصنا عيدنا دلكين يدينتنا ندفعنا ما أنت هو مالنتي حقيقة ما أنت هو مالنتي جريتانك ما أهم مالنتي إسقبسية ما أهم مالنتي لقوية ورعدو جينا يا كورنا قداونية عدو أيان لنا هاي هذا القشين سيد هبل إنا بقتك كسرتين هذا القشين سيد إنا العقادتين هذا القشين سيد إنا نلو يرو استراحة تكون ولاتين عدو قاقوحو قرشين يا بقصة نسدوكو ودحلي لها hareerahaga ayuu taagan yahay baddaada ayuu kor saaran yahay ciidaada ayuu ka buuxaa waxaa jira intaas oo kun oo halaq oo dhulkeena dhex jooga waxay ahayd maanta inaan difaacno aanu niraahno waxaan ma qaadan karno waxaanu nahay dad Soomaali ah oo aan aqbali karin dareenkaas isaga waxaan idinka codsanayaa waxaan idin rajaynayaa nolol deganaansho ah Allah subhanahu wa ta'ala xaqaha idin waafajiyo Allah subhanahu wa ta'ala ha idinku badbaadiyo oo masraxadan aad ku sugantihiin idinku badbaadiyo الله سبحانه وتعالى ما أنت وحن كرتشيننا صوماليين وأهيليو وإلى حق أهيليو ما أنت قف كست أو صومالي وحلو جبه هي إنه دور كي سقاطه ما أنت قف كست أو صومالي أم حلها هي أموز يوزن هين واجبات كدل كان وديعين هي دل كان واجبات كان إن جذنا يا ما أنت اللي نوجب هي ما أنت markii ibu xiray noo soo baxay markii rajada yareeda soo baxday markii la yiri iftiin baa jira markii la yiri dayax baa soo iftiimay miyaynu noqonaynaa kuwa cagta saara miyaynu noqonaynaa kuwa ku noqda 20 sano ama 30 sano ay soo dhaafeen miyaynu noqon doonaa kuwa u xiiseyn ay dhiig daadiyaan miyaynu noqon doonaa inaynu noqono kuwa isku dambaaba miyaynu ku duufi doonaa wadada xaqda iyo horumarka war Allah subhanahu wa ta'ala xaqahayna waafajiyo ilaahu rabbiyo dalkayga badbaadi ilaahay ha idin badbaadiyo xaqan ha idin waafajiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.